qaaliga subscribe inoo saar, like inoo saar. Asxaabta qaaliga halkan waxaan kusoo gudbinayaa wararka ciyaaraha iyo suuqa iyo kala iibsiga. Soo dhawaada asxaabta wararka ciyaaraha. Maxaa ka cusub ciyaaraha? Arsenal oo la ciyaaraysa kooxda Leeds United dhigooda Leeds United iyadoo ay ciyaarayaan kulan muhiim ah xilli ciyaareedkooda saameyn ku yeelan doona. Arsenal ayaa doonaysa in ay ka sare marto haddii ay soo badiso kulankan 4 dhibcood Tottenham. Bal waan arkaynaa Arsenal meel xun bay ku kufi taqaanaa inkastoo ay indhaweyd ay kacsanaayeen kulan xiiso leh oo ay Man City la ciyaarayso Newcastle kulanka Premier League iyadoo xalay ay loo soo barbareeyay kooxdii kula tartamaysay halka dhibic ay hore uga haysay Liverpool. Arki doonaa haddii ay ka badiso caawa Newcastle Man City inay ka badinaysana way u badan tahay. Marka waxaa leeyahay Liverpool horyaalkan waa idin daayay caawa hadday badiso 3 dhibcood bay kaga qabanaysaa. 3 dhibcood baa lagaga qabanaya reer Liverpool. Real caawa la ciyaaraysa dhigooda Atletico Madrid iyadoo saf sharafeed ay u gali doonto balse Atletico Madrid balaayadeedu way diideen. Waan arki doonaa in ay maamulkooda ku soo amraan inay u galaan iyo in kale. Suuqana waxaa ka mid ah Man City iyo Man United oo isku dagaali doona saxiixa khadka dhexe Declan Rice iyo Man United oo doonaysa inay la saxiixato tababaraha cusub Man United oo doonaya in la saxiixdo Christian Eriksen. Waanaga intaas wararka ciyaaruhu intaan ku kulmano kulanti dambe xiiso leh.